صفات كالدبق اللوعة هيلا العقرب صفات العقرب اسكا إلالي عقرب كصفتي سمت غانا وبيبقوا سسوتها قدنا عش جحاس باي من جحاس وتمساح جحاس كيبار أفكي سيبو كلابي لأنه وحاو كيري سوكر إلا دبق اللوعة وبيقى كما تلابي كرايو أما جحاسكو برقنا وبحاب وبيقنا وكو دحنو ليه دوشي سيبو فولي وبيقي مركو جحاسكي مركو وبيقى برتميه سأو مرينا يتمساحي إن عقربكي با قريني بالرو وكو دفتي مركابو صدا أوصو يقولي ما أنو وبيقى كات اللابين هيدي قريني سابو كيدي مركا سوري الصدا ما هنا سيكا لما قارنبو دانبو ما عندي إلا هذا ويل وحكى لما بها يقول سن كابان ودد الله فديا عندي صومر تبق كدف وان كو دفتا واشغد يدبر ور وظيفه يدبر marka dadka qaar haday sida noqdaan ka warrama maqaayada oo haduu la fadhiisto qabyaaladii politik wixii wadankeenu 30 sano hor ka hor uu ku dumay haduu maqaayada kaga sheekeynayo social media ga galil ka warrama halkii la oran lahaa ilaahu wadankayga nabad nooga dhig ilaahu madax khayr qabta noo keen ilaahu amniga noo ziyaadi ilaahu muslimiinta dalkayga ku nool qulubtooda mide oo taladooda mide oo makriga gaalada inagu socdo ilaahu naga qabo halkii la oran lahaa ummadda loo ducayn lahaa hadal ummadda isku dhaweeyana aad ku hadli lahayd haddaad maqaayada la fadhiisatid ka waran reehebel maanta waa inay madaxtinimada u soo baxaan waa aqrab hada sifaatu al-aqrab نفعي وين هذه يلتا نفع ومدى أنفع طبيعة الشنيدة يلو طبيعة ضفارك هيلن الشنيدة طبيعة دو النوعي جيت كما اكتو جيت كما ملك لك ما فريستو جيت كما يشوق وروح بدن بالشنيدة كدل فريستا وبح على الشيء ذا نوحي لهيك صار ملب لا يري فيه شفاء للناس ملب كان يجعل لا تكون لما جعل maxaa shinni looga soo shinnida maxaa malab looga soo saaray jirkeyga ma taqaanaan laana geedka meesha ugu qurux badan bay ka fadhiisataa iyadu markaasa ilaahay caloosheeda wuxuu ka soo saaray casal la yiri fihi shifaa'un linnaas maaha dawaa bal waa shifaa dawaaga iyo shifaaga farqi baa u dhaxeeya daawada marna ilaahay caafimaadka uu soo dhex marin karaa marna ilaahay caafimaadka ma soo dhex marin karo laakiin laba shay waa shifaa baa la yiri quraanka sheegay malabkuna waa shifaa quraankuna waa shifaa labada meesha bugta ee lagu eega xanuunka ma bareebaan weyn waxba kama tagaan allah inna siya kalsoonida quraanka iyo malabka marka doofaarka dabiicadiisuna waa dabiicadiisu ma taqaanaan beer qurux badan hadduu dhex yimaado meesha bullaacada ee qashin qubka la yiraahdo buu yimaadaa isagu lidaalika jirkiisoo dhan waa bacteria shariicaduna waxay ku leedahay hadday ku taabto ama adu aad taabatid 7 jeer oo mar carro lagu dhaqay mooyaane si kale uu jeermiskaas jirkaaga uga baaya ma jirto dadka qaar baa maanta war ummadda inta fiican baa laga eegaa dadka inta fiican baa laga eegaa shinidu geedka inta fiican bay ka eegtay meesha ugu qurux badnaydna way ka fadhiisatay waxa ilaahay ka soo saarana malab la yiri waa dawo haddaad adiguna dadka qabaa'ilka iyo dadka inna way fiicayihiin inna way xun yihiin inta fiican ha eegine inta xun ha eegine inta deegaysa inta fiican baa laga qaataa hadal baad maqashay intiisa fiican baa laga qaataa hadalka adiga ka soo baxaya qiyaas hadal ummadda isku keenaya ha ka soo baxo waxaad noqonaysaa haddaad dadka inta fiican aad ka raacdo oo inta fiican aad ka eegto waxa ilaahay ku soo dhex marin doonaa talo ama hadal ummadda isku keena baa ilaahay ku soo dhex marin wa illa haddaad qabiil walba intooda xurun aad ka eegto oo inta fiican aad ka eegi weydo waxaad noqonaysaa dabeecadda waxaad yeelataa doofaarka deedna waxaad noqonaysaa bacteriaad noqonaysaa meeshaad fadhiisataba jermis baad ku reebaysaa markaas بالذات maalmahan dad badan oo dibadaha jooga wadanka maanta gubaya wadankaas dadkiisu ay soo balanbaleen habeen horaan joogay qaxootiga dhadhaab maxaad u noqon weydeen baan ku yiri waxay xageen ku noqonaa bay yiraahdeen halkeen ku noqonaa 91 92 93
xerooyinkii loo xidhay bay ku jiraan 46 hay-adood oo tansiira ayay bartamaha ugu jiraan caloosha ugu jiraan meelay u dhaqaaqayaanna ma jirto xaggana uma soo socon karaan waddankiina kuma noqon karaan waxay ku leeyihiin dad baa noqday dadkii noqday bay ku leeyihiin cagahaasay ku oyan iyo jilbaha maanta nabad la-aan waddankaas ololaayay dadkiisii adduunyada ku kala firdheen haddaan inakoo waddankan amni ay arsaaqad ku haysana halka haddaan waddanka ka gubna ka warramo dabka ka shidno yaa ikhwaani ittaqullah ilaahay aan ka baqno oo naftaada la jeclow waxaad naftaada la jeceshahay dadka la jeclow dalkaaga jeclow oo dalka inaad jeclaataa waa hadyigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabigu magaaladiisa maka uu jeclaa maalintii maka laga saarayay ayuu nabigu sidaa u eegay isagoo ilintu ka daadanayso innaka la ahabbu lbilaadi ilaya buu yidhi walawlaa ana qawmii akhrajunii ma kharajtu minka yaa maka buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhulka adaanku ugu jecelahay haddayna tolkay iga kaa saarin wallahi kaamaan baxeen buu rasuulku yidhi war dalkaaga jeclow dalkaaga u damqo dalkaaga u ducee hadal wanaagsan wax ugu tar ha dhibin waddankaaga dhaqaalaha ku dhibin hadal social mediaga aad la soo fadhiisatayna ha ku dhibin ilaahay ka baq maka ayuu nabigu markuu ka baxay lilma sii daayay oo yidhi dhulka adaanku ugu jecelahay haddayna tolkay iga kaa saarin kaamaan baxeen buu yidhi waxayga ku soo degaya markiiba qul ina aladii farada calayka alqur'aana laraadduka ilaa macaad ilaaha waxayga kugu soo dejiyey waxuu ku yaboohayaa muxamedow maka inaad ku soo noqon doonto kugu soo celin doono dhuumashay ku soo baxeen isagii abubakar yowma alhijra walaakiin maalintii fatxi makana casiiz isagoo cizaysan oo sharaf leh oo 11 kun oo nin oo 11 kuba nebiga difaaciisa inay ku dhintaan ay diyaar u yihiin ay hareeraha ka joogaan ayuu nabigu maka soo galay xayaa'an min rabbihi jalla wacala isagoo rabbigiisa ka xishoonaya nebigu indhaha kor buu u qaadi kari waayey dhulkuu eegaya markuu maka galaayay isagoo le laa ilaaha ila allahu waxdah sadaqa wacdah wanasara cabdah wacaza jundah wahazaba alaxzaaba waxdah isagoo ilaahay u mahadnaqaaya ayuu nebigu maka soo galay calayhi salaatu wasalaam dalkeena nabad allah inooga dhigo dadkeena inaga maqan iyagoo nabad allah inoo soo celiyo kuwa maslaxadda diinta wixii diinta u dana ee dalkaaga u dana ee diintaada u dana ee dadkaaga u dana kuwa ka shaqeeyana allah inaga dhigo ikhwaani walaalayaal ilaahay diintan islaamku ina siiyey diinteena aan qabsano oo aan ka shaqeyno waa ku libanana adduunkan iyo aakhiro dadka waa laga shaqeeyaa dadka maanta gaalaa ka shaqaysay gaalaa dad ay samaysteen baa madaxa ayay madax kaaga dhigeen madax kuu saareen adiga ka kicila war dadka aan ka shaqeynay inakuna inta doona hay naga qaadato 100 sano hay naga qaadato seeskaan ka bilaabaynaa hoostaan ka bilaabaynaa natiijana kuma xisaabtamayno wa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alayka al-balagh wa 'alayna al-hisab nabiyullahi muhammad alayhi salatu wassalam rabbigii baa kulaha wa imma nuriyannaka waxaa laga yaabaa waxyaabihii aan ku yaboohnay ee ku ballan qaadnay qaarkood inaan ku tusnood indhahaaga ku aragto oo indhahaagu ku qaboobaan ood ku faraxdo mawaaciidan ku ballan qaadnayna qaarkood waxaa laga yaabaa markaan ku oofsanno inaan soo saarnoor muujinno adiga korkaaga waxaa saaran baa nebiga lagu yidhi inaad dadka diinta gaadhsiisaa dadka inaad dhistaa oo risaalada ku dhistaa oo qur-aanka ummadda aad ku dhistaa oo akhlaaqda wanaagsan ummadda aad ku dhistaa dadka inaad dhistaa oo diin ku dhistaa waa shaqadaada weeyaan xisaabtana annaka shaqadeeda weeyaan baa ilaahay yidhi natiijada ayaa daahirinaya waar natiijada ayaa keena ilaahay baa keena ninka beero qodaalka laba shay baa laga rabaa ninka beero qodaalka dhulkana inuu diyaariyo bidirkana dhulka inuu geliyo aaso bas roobka ka keenaya waa ilaahay ka soo saarayana waa ilaahay sidaasoo kale weeyaan innaka waxaa laynaga rabaa dadka inaan ka shaqayno siday u hagaagi lahaayeen dadka maxaa hagaajinaya dadka diin baa hagaajinaysa dadka iimaanka laga dhisaa dadka akhlaaqda inaan ka dhisnaan u baahannahay muslimka in laga dhaadhiciyo guushaada iyo liibaantaada iyo horumarkaagu meel kale ma yaalle rujuuc ila alkitaabi wasunna ilaahay u soo noqo sunnadii nabigeenna u soo noqo adduunkan iyo aakhiro waa liibaani
haddaan dadaalka aan qaadno intay dooni hay naga qaadatay natiijada inagu yaanan arkine waxa laga yaabaa dhashaan dhalnay dhashoodu inay la kulmi doonaan dad wanaagsan oo diin ku xukumaya dalkooda dad wanaagsan oo diin isku jecel dad wanaagsan oo cizigi u soo noqday dad wanaagsan oo diinta qiimeynaya ayaa laga yaabaa dhashaan dhalnay dhashoodu inay arkaan laakiin haddaan ka shaqayni weyn intayna maanta diinta waxaa dhici karta ma taqaanaa kuwa innaka maanta ina dhalay waxaan leenahay mar walba aniga aabbahay baa iga fiicnaa warsoo nin walba sidaa ma yidhahda ha dhade nin walba haddaad waraysato wuxuu odhan waalidadayo ma gaadhi karayno dab ayaa dambas dhalay tara soomaalidu dabba ma gaadhi karayna aabbayaasha way naga fiicnaayeen waa run way naga dadnama fiicnaayeen laakiin kuwa innaka maanta naga yaryar ama kuwa imika dhalanaya ka warrama sidee ku socdaan kuwa madaxa ku socdaa dhashay madaxa macnaha madaxu waa maxay xataa caqligooga kuma socdaan sharciga iska daa caqligeennii dadnimo kuma socno maanta war dadna dhaama adduunkaan kusoo biirino saa darteed diinta ha ka shaqayno insha allah dhahada yaa u diyaara insha allah sidaa